wakaalada caymiska qaranka jaleha cabdilaahi maxamed diirshe waxaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka shirkadda dayuuradaha Soomaaliyeed ee Somali Airlines jale gaashaanle sare cabdilaahi diini cusable waxaa loo magacaabay xogayaha guddiga siyaasadda ee golaha dhexe ee xisbiga hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed oo ugu qaybsan hawlaha qoraalada go'aanadaasi xalay ka soo baxay guddiga siyaasadda golaha dhexe xisbiga hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed waxa kale oo kamid ah qodobada soo socda kaalimihii shidaalka ama badroolka waxa lagu wareejiyay iskaashatada madaxa bannaan ee gaadiidka baldaawadayaal haddaba maadaamuu axmed muddadaasi ku biiray tvgii muqdisho bal aynu eegno axmed siciid igo isagu ka waramaya barnaamijyadii iyo wararkii waktigaasi tvga ka baxayay ciidamadii kacaanka dowladdii Soomaaliyeed iyo warar kale barnaamijyo kale oo iminka ka buuxa baraha internetka sida dadka inta badan ba ay arkaan bal axmed aan wax ka weydiiyo barnaamijyadaasi iyo wararkaasi oo waqtigaasi duubayay oo ay kamid ahaayeen ciidamadaasi kacaanka dowladdii Soomaaliyeed waxa maxamedow wad fiicantahay marka barnaamijka ku daawanayna weeyaan laakiin tan ugu ay dadku aad isoo weydiiyaan watan ciidamada marka ay dabaaldega ay marayeen 12 October 1983 bayd sanad guuradii 14aad ee kacaanka yahay marka wacajalada waa la isugu tagay oo ragii masaarida ahaa ee markaas aan ku leeyahay TV-ga furayeen oo rasmi ahaan maalintaaba hawada u galayay iyo ragii kale kameramaanada ee aqoonyahanada ee markaas Soomaaliyeed ka shaqeeyay maxariistay Cabdiraxmaan Kawndan ka xusuusta Baasale Xasan Biid waa la isugu tagay afar kameradood baa la isticmaalayay mixer baa la isticmaalayay cilmi baa la isticmaalayay anigu cadceed man arkayn mana meesha xageeda daban gaari studio baan ku jiray magti marka afar kamera la isticmaalayo kameradu waxay ku soo gudbinaysaa kameynka shaashada meynka bad waxay soo galaad markaas aad sharaxaysa adigu 2 saacadood iyo bad ninkii mixerkuna waa ku ag fadhiya headphone ku wad gashanto producer halkaas ka dalbanaya waxana de marka khibrad u leedahay anoo arday baan maray anigoo xalana ku jira baan maray anigoo radio muqdisho shaqeynaya baan u soo joogay marka wad garanaysaa waxaan isay u socdaan wax lagu celcelin jiray marka dadku waxay aad iyo aad laakiin ay sheegaan oo ka soo qaataan inta aad iyo aad ay weydiiyaan meel kasta ay kala soo hadlaan waxa weeyaan ciidamada soo dhisnaayeen iyo sidoo dadku markaas loogu dabaaldegay iyo xagga dhismaha iyo waxa burburay ayay eegaan marka magti ay dadku eegaan marka meel walba la geliyay oo YouTube-yada dhan baraha internet ko dhan ay ku jiraan TV-da laga sii daayo hadii jeer waan arkay iyadoo waqtiga laga sii daayo TV fara badan oo TV-da fara badan ee Soomaalidu waqtigaasi marka dad badan oo la soo xiriira waxaan filayaa inay jawaab qaar ba khaldo yiraahdo waa 4 ma aha inay cajaladaasi waxay 1983 22 October sanad guuradii 14aad kacaanka yahay markaasi oo hubka iyo gidi iyo waxa awooda iyo quwadda iyo waxa lagu soo bandhigayay waana markay bilaabatay oo laga yaabay inuu lagu talagalay kacaanka markaas in cududan muujiyo oo laga yaabay inuu hanjabaad ka dhigayay oo markay bilaabmeen weeyaan kacdoonadii jabhadu markaas bilaabmeen oo 3 state ka magti 2 state ka bilaabmeen magti ya ku marka ku horeeyay way jira qaar dhowr todobaad ka bilaabmay laakiin markii si xogeystay ayaan uga jeedaa ciidamada soo bajeesayaasha kamaan doogta ayaa iyaguna fagaaraha maraya xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu yahay midii isagu u diiday dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya cadow kasta oo soo daandaansada isla mar ahaantaasina tusaa darsi lama ilaawaa cadow kasta oo isu soo baxaysa in uu taaka kamid ah dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya uu ku soo xadgudbo waxayna ay yihiin soo bajeesayaashan imika kuwa aynu ku libnay waxa ay gashan yihiin tuutihii lagu yaqaanay ciidamada soo bajeesayaasha ee xoogga dalka Soomaaliyeed manka warka diraanaha iyo kuwa wax sawiraba si aad ay ugu mashquulsan yihiin ciidamada سياسني وحا أي نفتودا أي أهرى هذه الشير دافعادة دلكه وعين أي نكوة ومدى صومالية أي كل دوه وكوة عدوغا ومدى صومالية الدوق الصلاة فيها لاقا كبران
dadweynaha ku gadaaman hareeraha kala duwan ee gabidatan ay soo marayaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisii ugu dambeeyay waa hubka waxa ay yihiin qaar aad iyo aad ugu faraxsan sida يعني wanaagsan ee halkan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay uga muujinayaan in ay diyaar ka yihiin daafacaada dalka hooyo iyagoo adeegsanaya hubkaasi casriga ee madaafiicdaasi ay aragtaan ay ka yihiin ee ay jiidayaan gawaadhidaasi kala gedisan maadaama TV-gi Soomaaliya Muqdisho la furay 1983 ama 83kii aduguna waqtigaasi aad ka timid jaamacadda oo aad xalane adigoo kaaliyo u ah professorkii wax ka dhigay waqtigaasi aad ku soo birtay TV la foole aad ku soo birtay TV-gi isla markaana 22kii October oo ahayd maalin dadka aad ugu weyn waqtigaasi dawladda Soomaaliya aad ka warramaysaa ama barnaamijka aad ka hidaadiye dareenkaaga waqtigaasi Axmed bal dadka ma sharaxi karaysaa horta idaacadda iyo telefishinkuba waatan ku sheegayo sax waxay ahaayeen propaganda markaasi dawladda wadeegaysa sax oo dawladda u gaaro ninku qofka wariyihii ra'yi ma lahayn laakiin idaacadda siyaasadeeda lagu socday waa in siday tahay guidelineskeeda lagu socdaa idaacadda kacaan bay ahayd oo qof hadli karaa ma jirin qofkii hadla waad garanaysaa dadka siyaasadda u xidhnaa iyo gidiyata markaa anigu dareenkaygu dareen caadi buu ahaa isma bedelin marnaba dareen caadi oo shaqadayda aan gudanay bay ahayd TV-gana markaa anigu party baan ugu shaqaynayay khibrad ahaan baa markaa laygu yeedhay laakiin anigu waxaan shaqaale joogtaa ka ahaa jaamicaddan ka markaa la foole oo barkaaliye ka ahaa oo Suleymaan Axmed guuleed diinka nimka jaamicadda Camuud ayaa noo ahaa la foolo dhan madax noo ahaa kulliyadda saxaafadana waxa uu madaxa loo naxariista u dhintay Dr. Maxamed Ismaaciil markaan halkaas aan ku ahaa shaqaale aan macallin rasmi ka ahaa laakiin markaa TV-ga Bartin man waxaan jiro wararka galabtii aan akhri jiray iyo barnaamijyada ayuun bay markii dambena waan ka tagay baa muddadaasi kadib waxa tagtay Qaahira ama dalkaasi Masar oo imika isbedel kala duwan ay ka dhaceen bal muddadii aad Qaahira ku sugnayd Masar bal dadka maxaad ka xusuusataa maxaad halka ka soo qabatay maxaa khibrad kaaga soo kordhay waay aragnimadaadii horta Qaahira iyo Masaarid waxay yiraahdaan waa dunya waa meel xadaarad leh fog oo de 6 sanadood ka hor dhalashadii Nabi Ciise faraacinadii iyo gidi iyo adduunyada waa dunya bay halka adduunyada ay yiraahdaan sababta aan tagayna waxay ahayd xagga telefishinka maadaama iyagu gacan weyn ay ku lahayn Masaarid oo ay u keeneen kaadirkii taabarayay dhaqaajiiba dawladda carabtuna qaar baa iyagu maqaalaha inay bixiyeen waliba Kuwait iyo lacagta lagu dhisay telefishinka ayaa October 22keedii 1963 markii la furay TV-gi يعني wax ka yar sanadka bacdi waa inay shaqaale la wareegaan tabar oo ay tabaraan shaqaale marka ay geeyeen meesha ayaan kamid ahaa 5 baan ahayn markaan waxa production ka iyo presentation ka ayaan ahayn wariyahan iyo barnaamij soo saare waxaan tagnay marka 84kii November baan filaya ilaa 85kii waan joogay bartamihiisii Qaahira waxaan joogay marka waan ku soo tabaranay telefishinka weyn ee Masar oo marka caalamul carabi isaga haystay jasiire iyo ma jirin waxa marka la daawan jiray waa musalsalaadka ay sameeyaan nimanka Masaarida ay sameeyaan khatartii oo sartooda weyn ee Masbira la yiraahdo halkan miidaan tahriir ay ka dhacayeen maalintii mudaharaadku agteeda oo marka qaar kood laga cilinay dadka darkiisa la waxay doonayeen inay galaan telefishinka niilkii ku agtaala haraamna waa ku agdhowdahay marka waa meel taariikh leh waa sir dheer oo in kooyatan dabaqayd baan waleynaya oo TV-goodii iyo idaacaddoodii iyo intaas oo luqadooda adduunyada kula hadlay laana Soomaaliya xataa jirtay لا Soomaaliya ilaa hadda inay jirto mooy laakiin way jirtay soo gaadhay 90 la waan ma qayn xireen kale laakiin way jirtay marka meeshan tagnay rag waaweyn oo caan ah suxufiintooda nagu tabaray Axmed Daahir iyo Anwar Shitay warkii furay idaacadda laanta Carabida ee BBC da furay markii la bilaabay qarnigii horeba marka dadkaas noo dhigi jiray wax baan ka faa'iideysanay waxaan isugu meesha anigu aan tagay meel ay Afrikaan ku tabaran oo la yiraahdo Training Institute for African Broadcasters مع التدريب الإذاعيين الفارقة دوري صدم دلو أفريقيا نهين إن سياسة ورد بكاركتان إن مركا دمشق ونكسر تابرناي وحنلو تشغلي رجي نجومته هاي مساريد عادل الإمامي سمير غانمي بوسي بمركا هيدو مسلسلات يرجي كلا ده صحفيين تاع إن عنكها
gidi meeshaan oo haraan baan tagi jirnay oo waxaan tagi jirnay idaacadooda marka qaarkood anigu laanta Soomaaliga ka hadli jiray oo aan caawin jiray ba waxaan xustaa Naasir Xaaji Cali shirka ka shaqeyn jiray Allahu naxariistay odaygii markaas laanta af Soomaaliga ee idaacadda Qaahira Ismaan Langare reerkiisu halkan degan yihiin oo lagu degi jiro dadkoo dhan lagu degi jiray wixii dhakhtar u tagay wixii dalxiis u tagay dad Soomaaliga ilaa markii la furay ilaa kontraadkii markii la furay way ka horeysay laanta af Soomaaliga idaacadda Masar laanta Soomaaliga BBC way ka horeysay 1900 iyo waxay 6 iyo 50 baa la furay laanta af Soomaaliga BBC 1950 baa la furay sanadkii ka horeysay marka waxa daarada in Masar imka waxa ka dhacay isbedel baa ka dhacay madaxweynihii waqtigaasi uu tagay Axmed Saciid Cige ee wadanka maamulay haatan isbedel weyn ayaa ka dhacay dalka Masar bal Axmed Saciid Cige oo aanu sii deynay habeenna dhaweyd oo aanu ururinay taariikhdii dalka Masar iyo taariikhdii uu ku lahaa Soomaalida madaxweynaha haatan xilka ka degayo aanu sii deynay Axmed Saciid Cige oo xiriirinaya barnaamij madaxweynaha dalka Masar ee ka xilka ka degay Xusni Mubaarak oo booqasho ku tagay Muqdisho oo la kulmaya madaxweynihii waqtigaasi Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre bal aan weydiiyo isbedelkan haatan dalka Masar ka dhacay iyo waqtigaasi oo booqday iyo sida uu arko haatan doorta xiriir ba ka dhaxeeyay oo runta marka la sheego Soomaalida iyo Masaaridu aad bay isugu dhawaayeen inahan dambe waa laga yaabaa qaybo Soomaalida inay ka boodsan yihiin Masar oo ay leeyihiin aad bay u taageertay Siyaad Barre markii dagaaladii jabhadu ay jireen oo taal ma qarin karo way jirtaa oo marka Xusni Mubaarakna wuxuu ku kahayay marka oo marka way dhici kartaa laakiin xiriirka shacbiga labada shacbi u dhaxeeya xiriir weligiiba jiray buu haayo iskuuladaan ka soo baxnay anagu burca ku yeelan kaaga sheekeynayo Masar baa samaysay marka wuxuu yimi Xusni Mubaarak TV-ga oo furnaa telefishinkii marka cusbaa iyaguna kaalinta ka geysteen October baa la furay yani wuxuu furay 4 bilood 5 bilood 3 bilood isagoo 4 bilood isagoo furnan ayuu yimi oo 84 bishii February 4teedii ilaa 5teedii seen barnaamijyada ku sii diisan reer arkay ayuu yimi si loo qaabilay wada arkaseen si loo xiyay wada arkaseen wada arkaysi dadka kala aqoonta lahaa riwaayadii ay u dhigeen oo xiriirka marka ka tarjumaysay iyadoo aan wax propaganda kuma jirin laakiin markii xajabsuud ay bilaad bunto dhulka Soomaalida ay ku timiyeen booqashada 5 sano 6 sano ka hor ilaa xiriirkaasi wadiga arkaysi riwaayada loo jiray heesaha qaadayeen Carabida ahaa fanaaniintii caanka ahayd wada arkaysay marka wuxuu wadiga arkayay isbedelkan bal indhina idin macalina isbedelkan wallahi qofku markuu ku raago meesha qof wali markuu raago meesha 60 sanadood waxay ahayd wax Masaaridu waxay tiraahdaa kifaaya وهو ربما يسوي ده تاسكو فلان كفاية يعني صد السنوات وممكن تبان الدورة هنا كيسة إنه ولا بده حركة يقوم ماشي marka inta lagu cibra qaato weeyo cid walba ay ku cibra qaato in qofku haduu doonayo wanaag ka tagan wanaag ku wareejiyo sidii doorashada dalka ka dhacday xalaashayda darkaysa maalintii sidii la isugu saacbinayay madaxweynaha hore daahir yaala madaxweynaha cusub Axmed Siilaayo ku wareejiyay wadigaarka ay ummadda dhan ugu hambaliyeenaysa waxa hadduu doono inuu wadarkaysidii wadadii mareen dictatorradii oo dhan mareen way Xusni Mubaarak maalintii uu isku yara dhajiyay runta marka la sheego dad badan waxay arkayeen uu isku yara dhajiyay taasi way yara dhaawacday sharaftiisa hadii laakiin maalintii markiiba uu iska wareejin lahaa sidii bin cali oo kale waxa dhici lahayd inuu magac yeesho laakiin waxa dooday inuu magaciisa u dhaawacmay